بسم الله واد سلامتهين جود أهاني جار أهان بأمة الصوماليات ملك استأجوكتان waxaan idinku bishaareynaya inuu bilaaban doono ama nagu soo foolleeyahay asbuucii jaamacadda jamhuuriya sida aan wada ogsoonahay ba ummad kasta waxa ay leedahay dhaqan iyo hiddo u gaar ah ay kaga duwan yihiin ummadaha kale sida li ajligeed ummadda Soomaaliyeed waxa ay leedahay dhaqan soo jireen ah oo ka soo gaar ah ab ilaa ka ab asbuuca jaamacadda jamhuuriya waxa uu ku saabsan yahay isxasuusinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo dib u jaleeca dhaqankeena quruxda badnaa waxaan lagu soo bandhigi doonaa asbuucaas tartamo aad u qurux badan sida ciyaarihii Soomaalidii horeeto iyo sidoo kaleeto waxa lagu soo bandhigi doonaa cuntooyinkii quruxda badnaa ee Soomaalidu asal u lahaayeen sidoo kale asbuucaas waxa lagu soo bandhigi doonaa hoygii quruxda badnaa ee Soomaalidu dhaqanka u lahayd loona yaqaanay aqal Soomaaliyeedka asagoo aad u qurux badan misana dhisan sidoo kale waxaan ka maqnaan doonin gogoshii quruxda badneed oo Soomaalida u lahayd dhaqanka misna farsamada gacmaha ay kamid ahayd waxa lagu soo bandhigi doonaa oo halka ka maqnaan doonin gaadiidkii Soomaalidu dhaqanka ay u lahaayeen sida geeli fardihii iyo wixii la mid ah waxa halka ka maqnaan doonin asbuucaas insha Allah ta'ala murtidii iyo suugaantii ay Soomaalidu geed fadhiisiga u lahaayeen waxaan nagala qayb qaadan doonaa qayb kamid ah abwaanada Soomaaliyeed asbuuca quruxda badan waxa uu ka koobnaan doonaa guud ahaan inta aan soo sheegay ka soo qaybgalkiina aad baan ugu farxi doonaa insha Allah ta'ala gacmo furan ku soo dhawaada bulshada reer Muqdisho oo dhan aad u mahadsantihiin waan idin salaamayaa